سبحان الله والحمد لله سبحان الله لله به تعلو الدعوات وتحل على الناس البركات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. kulley waan ilaahay dartii un baan isku soo buuqanoon anaguna nii soo ziyaaranay. inta badan anaku masaajidda dadka imanayee iska masaajidda ku xidhan un baan la hadalaayoon wixii ilaahay khayr noo soo dhex maraya maaragtaane aan u sheegnaa. howlashan waaweyna haddii meelihii xafalaadka adduunyada iyo farxadaha iyo mararka qaarkoodna fasaad loogu talagalay in diin loogu kulmaayo, diin laysku sheegaayo, diin laysku baraarujiyaa, waa nicmad maaragtaane ilaahay casa wajal xaggiisa ka timiday. maxaa yeelay dacwaddu nabigeena calayhi salaatu wasalaam saxaabada radia allaahu canhum masaajidka dhexdiisana uu kula hadli jiray, aswaaqda dhexdoodana nebigu waa kula hadlay, xabaalaha dushoodana nebigeenu calayhi salaatu wasalaam uu kala hadlay. marka diintu wax meel keliya ku kooban maaha. jucilat liya alardu masjidan wa tahuura buu nebigu yihi. xataa salaadii buu nebigu ka hadlo wuxuu yidhi khasaa'isa ilaahay uu aniga i siiyey waxaa ka mida buu nebigu yidhi in ummadayda iyo anigaba arlada la nooga dhiga maaragtaane meel tahuur ah, oo hadduu qofka biyo waayona carada uu ku tayamumi karo, hadduu masaajidka uu gaadhi kari waayona salaadu meeshay ku soo gaadhaba uu ku tukan karo. aayadda xadiiskaasi markaa wuxuu ku tusinayaa diinteennu maaha diin ku kooban masaajid keliya maaha. meel walba in ilaahay lagu ammaano, oo ilaahay lagu caabudo, oo ilaahay lagu raalligeliyo, waa hadafka ilaahay adduunka uu u dhisto u taagtay weeyaan. marka in yar waxaan wax ka odhanayaa, inkastoo waktiguna uu nagu yar yahay, maqribkana aan masaajid kale iyo dad kale aan la ballansannahay. hadafka laynoo abuuray muxuu yahay? waayo hadafka haddaan garanno nolosheenna adduunyadan iyo teenna aakhiro way noo toosi. laakiin qofka hadduu hadafka uu ka lumo, uu hadafkii dhannaayo adduunka loo keenay iyo ciddii keentay iyo ujeeddii laga lahaa hadduu ka lumo, dee qofkaasi adduunkanna noloshiisu waa burbur, aakhirada intaan la gaadhinna adduunkana qofka cadaabta ku asiibi. marka hadafka horta laynoo keenay waxa weeyaan waa inaan fahamno. waxaan bilaa hadafa haba yaraatee ma jiro. layrkan haddii uu damo oo uu gubto waa la bedeli, laanna hadafkii loogu talagalay uu ka tegey ka dhigan tahay. mikrogan hadda aan ku hadlayno haddii uu cabdilmo qashinkaa lagu tuuriya waa la iska tuuri, waayo leanna hadafkii loogu talagalay uu ka weecday. marka hadafku waa muhiim jiddan. shay kastoo adduunkan yaallo oo iska daa ilaahay abuuray iskaba dhaafe ay bini aadamku gacmahooga ku samaysteen, hadafkay u samaysteen hadday ka waayaan shaygaasi waxaa la dhigayaa markaa meesha la yidhaahdo qashinka ayaa la iskaga tuurayaa. waad aragteen gawaadhida markii ay cabdilanto ee la samayn kari waayo waa la iska tuuraa. mobeeladu waa la mid, oo dharku waa la mid, oo maaragtaane aqalada waa caynka. aqala 100 sano ka hor haddii la dhisay hadda la gali kari maayo, laanna hadafkii loo dhisay way dhaafeen haddee toola iyaku. marka shay kaste haddii hadafkii loogu talagalay uu ka weecdo, waa shaygaasi markaa waa uu lumay ka dhigan tahay. deedna waa layska xoori, meel baa la iska dhigi. inaku bashar baa nahay oo ilaahay casa wajalla isaga adduunyada ina keenay. allihii ina keenay adduunka inagu soo biiriyey, ina jirsiiyey, haddana ilaahay jalla wacalaa cabas ciyaar iyo dheeldheel inuuma abuurane waxau inoo abuurtay hadafkiina waa laynoo caddeeyey.
oo abuna aadam calayhi الsalaam iyo umana xawaa markii arlada la keenay ilaahay jala wacalaa wuxuu ku yidhi imaa yaأtiyannakum minii hudaa faman tabica hudaaya falaa khawf calayhim walaa hum yaxzanuun. aadam calayhi الsalaam iyo ehelkiisii markii arlada la keenaa ilaahay ku yidhi aadam duriyadaada u sheeg waad tarmi doontaayo adduunkan adiga ayaa ka noqonaya khaliif. oo basharku khalqiga ilaahay abuuray waa kuwa ugu karaamo badan oo ugu sharaf badan, laakiin bani aadamka waxaad u sheegtaa aadamow ubadkaaga baa lagu yidhi hanuun baa xaggayga iniiga iman doona. hanuunku waa shareecadda weeyaan, waa rasaa-isha ilaahay jala wacalaa uu ergadaya rususha inoogu soo dhiibaya weeyaan. haddaad hanuunka aada soo raacdaan baa ilaahay yidhi murugoonina wax niga murugsiiyana arki maysaan, wax ini cabsi geliyana arki maysaan baa ilaahay yidhi. aayad kalena waa kii ilaahay ku lahaa falaa yadilu walaa yashqa. hanuunkaa ilaahay xaggiisa ka yimid qofka rumeeye ee raaca adduunka dusheedana qofkaasi baadiyoobi maayo, baylax ku dhici maayo, kuwa aakhiro khasaaray ee hoogeen naarta ku dambaynayana ka mid noqon maayo. marka hadaf waxaa jira wax hadafa oo bini aadamka loogu talagalo adduunka loo keenay. waxna waa wax daruuriyaad oo qofka bini aadamku uu u baahan yahay. biyahan in la cabo waa min adaruuriyaat, cunada in la cuno waa min adaruuriyaat, dhar in la xidho waa min adaruuriyaat, aqal inuu qofku hoy uu ku hoydo helo waa min adaruuriyaat, kasbi xalaalo qofki inuu ka shaqeeyo waa min adaruuriyaat. daruuriyaat waxay maca daruuriyaat waa maxay? waa waxa mar walba aanan loo baahnayn laakiin markii loo baahdo un la isticmaalayo. maalan biyahaasi dee qofku maanta oo dhan biyo u wadi maayo, laakiin mar alle markuu yar oomo ayuu biyaha cabayaa. oo dhakhtaradu waxayba baryahan dadka ay ku dhiirigeliyaan maadaama dadka fadhigoodii uu batay oo shaqadii gacanta ay ka shaqaynayeene oonkii haraadka u keenaysana ay yaraatay, waxayba kula taliyaan cunadana adigoo u baahan ka joogso, biyahana adigoo aan u baahnayn iska cab bay yidhaahdaan. wa ilaa laakiin waa min adaruuriyaat, biyuhu waa daruuriyaat, cunadu waa daruuriyaat, qofku inuu reer yeesho waa min adaruuriyaat, inuu meherad ka shaqeeyo waa min adaruuriyaat, inuu dhar xidho waa min adaruuriyaat, inuu seexdo waa min adaruuriyaat, in maaragtaane uu ciyaal reer inuu helo waa min adaruuriyaat. waxaasi waa daruuri. waxay ka dhigan tahay waa maxay? waa shayga mar uun loo baahdo ee mar kasta oo joogta aanan loo baahnayn. hadafkuna waa maxay? hadafku waa waxa la doonayo ilbiriqsi inuu noloshaada uuna ka maqnaan. marka hadafka laynoo abuurtay adduunka laynoo keenay waa maxay? waa ilaahay cibaadadiisa. hadafku waa kaas qur-aanka ilaahay ku sheegay wamaa khalaqtu اljina wاlinsa ila liyacbuduun. ilaahay baana jiniya insi haddaan abuuranayna wax kale umaan abuurana baa ilahay waxaan u abuuranay keliya inay annakana caabudaan ee na gartaan baa ilaahay yidhi. marka garashada ilaahay bini aadamku ay garanayaan ayaa noloshoodan adduunyaduna ku hagaagaysaa, noloshooda aakhiraduna ay ku hagaagaysaa. haddii ay bini aadamku allihii koonka keena ay garani waayaan oo noloshooda ay ula wicdaan xagga daruuriyaadka. daruuriyaadku waa maxay? waa inuu qofku faqad uu ka fikiraa uun meeshuu seexan lahaa, wuxuu cuni lahaa, wuxuu xidhan lahaa, meeshuu mari lahaa, wuxuu samayn lahaa, inuu wax dhalo, uu wax dhaqdo, uu wax fuulo, uu seexdo, uu cunteeyo, uu iska socdo un bilaa hadaf. may bilaa hadaf maa. haddaad bilaa hadaf aad leedahay waan u noolaanayaa, qofkaas waxaa la odhanayaa waa dalaal, uu hallaabay oo uu lumay qofkaasoo dariiqa xaqa uu ka weecday. mar hadduu dariiqa xaqa qofka uu ka leexdana ilaahay caza wajalla adduunkan intuu joogo qofka ilaahay garabkiisa uu ka baxaya. oo maxaa u yaalla qofka lume ee baadiyooba? waman acrada can dikrii faina lahu maciishatan danka wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acmaa baa ilaahay yidhi. qofka adduunkan dusheeda ilaahay daacaddiisa ka jeesta baa ilaahay yidhi adduunyada inta la joogo noloshuu ku noolaanaya waa cidhiidhi, maba raaxaysanayaba. dhaqaalaha hadduu haysto dhaqaalaha ku dhex raaxaysan maayo. mansab iyo darajada hadduu haysto mansabkiisa ku dhex raaxaysan maayo. awlaad fiican iyo reer wanaagsan hadduu haysto ku dhex raaxaysan maayo. shaqooyinka adduunyada ugu qiimo badan iyo aqoonta adduunka ugu qiimo badan hadduu leeyahay waxba ku raaxaysan maayo. waayo waxa uu noqday qofkani qof hadafkii baa ka lumay. hadafkii maalin dhexdaaya maqtac waxaan akhrisanayey naag islaam duqa oo waddanka faransiiska u dhalatay oo filosofada laga qoray. waxay tidhi waa da-deedu waa dhowr iyo 90 jir. waxay tidhi lacag sidaan lacag u samayn lahayn baan dadaalkayagii oo dhan ku bixinay tidhi. lacagtii waan helay tidhi. aqaladii adduunyada ugu quruxda badnaaye ugu qiimo badnaana waan dhisanay, laakiin usrad kuma dhexayna bay tihi. usrad
oo macnaha reer ishaysta aabba iyo hooye iyo ubad isku xidhan oo ishaysta aqaladii aan dhisanay adduunyada ugu qiimaha badnaa kuma haysanay tidhi waayo dadka caddaanku inaku maanta aan hiigsanayna ee leenahay kuwaasa horumar gaadhay ilmahoogu hadduu gaadho 18 jir hooyadiina ma yaqaano aabbihiina ma yaqaano gobolka Detroit ee Michigan bari annakoo joogna ayaa nin Soomaaliya oo aad u da'weyn oo dadkii waliba 77kii Soomaaliya ka baxay ahaa ayaa la noogu geeyay guri markaa isagoo jiifo xanuunsan annakoo jamaaca marka dhowr jinsiyadood baan iskugu jirnaa markaa Soomaali Arab Suuriyiin nala socday Pakistani baan nala socday Afro American baan nala socday waan isla soconay waa ku weecanay markaasaan u ducaynay wuxuu yidhi kaalaya buu yidhi aqalkan dariskayga waxaa ku nool buri oday duqa oo gaboobay iyo islaam duqa oo gabowday waa laba caddaan oo Maraykana waa labaduba way xanuunsan yihiin waa sankaraad kaalaya iyakana bal u tago salaama buu yidhi wax dada anigaa u gala buu yidhi markaasaan u gallay mar alle markay arkeen annakoo u soo galay aqalkii odaygiina halkaasuu jiifaa iyadiina halkaa bay jiiftaa labadoodii baa la soo kiciyey way sag fadhiisteen markaasay farxeen way farxeen markaasay kala bateen odaygii yuusuf bay ku yidhahdeen yuusuf intan oo dhan ma wada qoyskaagiibaa bay ku yidhahdeen ila Maraykan dalkaasi habartu waxaa laga yaabaa mar nin caddaana inay la noolaato laba cadcad ay u dhasho mar mid madow waa u imanaya laba mid madow bay u dhali mar mid Chinese u imanaya mid Chinese u dhali marka iyagu xagga hooyo walaalka yihiin xagga aabbo walaalkama marka wuxuu u qaatay intayadan inay islaan kaliya wada dhashay maca Yuusufka markaasuu yidhi may islaamnimo un bay igu soo ziyaarteen buu yidhi islaamnimo likowni annii muslim ogaashahay ogaadeen inaan ahay muslim ayay aniga isoo booqdeen buu yidhi wax nasab oo ka dhexeeya haba yaraatee ma jirtee waxaa naga dhexaysa laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullah markaasay islaantii duqdii iska oyday iska barooratay markaasaan ku nidhi maxaad la ooyeysaa bal noo sheeg waxay tidhi master yuusuf adigana diin ahaanba dadkaagu kugu soo ziyaaranayaan oo waxaad leedahay dadka kale jinsiyada hooyihi aabba nima wada dhaline laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullah baan walaalo ku nahay annakana labadii u wadeen dhalla yidhahdeen wiiliya gabadh baa ilaahayna siiye yidhahdeen maalintii 18 jir gaadheen baa wiilkiina noogu dambaysay inankiina maalintiiba noogu dambaysay yidhahdeen labadooda marka aqalka waxay ku haystaan odayguna ay yar buu qolkaa ku haystaa iyadna ay bay qolkaa ku haysataa hadday dhintaanna cid dhaxlaysa ma jirte dowladda hoose ayaa dhaqaalahooga iyo guryahoogaba ku iibsa $10 marka u dambaysa oo waxaan ka wadaa markaa haweeneydaasi waxay tidhi lacag waan samaynay sidaan u samayn karaynaba aqaladii adduunyada ugu qurux badnaana waan dhisanay tidhi laakiin usrad aqaladii usrad kuma haysano nolol usradeed oo ishaysata kuma haysanay tidhi waxay tidhi haddana ashyaadii adduunyada ugu qiimo badnayd waan iibsanay oo aqalada waan dhiganay haddana sacaadadii qalbiga ma haysanay tiro raaxa ma dareemayno daawadii adduunyada ugu qiimo badnaydna dhakhtaradeedii noo yaallin guryaha dhexdooda haddana caafimaad ma hayna bay tidhi jaxiim naartii jaxiimo la odhanayey ayaan adduunka dusheeda annaku lacagteeda ku samaysanay tidhi marka waxaan ka wadaa hadduu bini aadankan hadafku uu ka lumo ilaahay wuxuu yidhi waman acrada can dikrii fa ina lahu maciishatan danka wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acmaa ilaahay baa yidhi qofka hadduu ilaahay daacaddiisa ka jeestu dhabarka u jeediyo ilaahay garan waayo nolosha adduunyada intuu ku nool yahay qofkaasi waxa uu ku jirayaa markaa cidhiidhi ka bixi maayo weligii mar horena qisadaa waan sheegay niman tuuristi oo caddaana meel xeeba ayay marayeen iska dalxiis bay haayeen nin dhallinyaro ah oo markaa muslim oo xeebta ag jiifa bay arkeen doontii bay soo weeciyeen way u yimaadeen way kiciyeen maxaad meesha la jiiftaa wuxuu yidhi nin waxaan ahay beesheer waa kalluumayste khaydka xadhiggaa badda iigu jiro oo kalluunku marka malaygu markuu qabtana waan kacaa buu yidhi oo waan qabsadaa laba xabadood haddaan shaqaysto gurigaan iskaga noqdaa buu yidhi ma laba keliya ha laba xabadna waan iibiyaa oo masaariiftaan ka dhiganaa aniga ubadkaygu midna ciyaalka noolkooda ayaan uga dhigaayo basaskan ayay u raacaan buu yidhi intaa markaan shaqaystana waan iska hoydaa buu yidhi way ka naxeen oo lacag bay iska ururiyeen baa la yidhi lacagtii bay siiyeen wuxuu yidhi lacagtan maxaan ka dhigaa wuxuu ku yidhi waxay ku yidhahdeen shabag baad iibsanaysaa shabag baddaad ku tuuranaysaa halkaad maalintii laba xaba keliya ka qabanaysay 20 baa laga yaabaa shabagga inay kuu soo gasho deedna magaaladaad kula noqon waad iibin lacagtii lacag ka badan baad samayn markaasuu yihi kadibna waxaan in muddo ah sidaa ku shaqeeyo lacagta ururso
markaasuu yihi kadibna marka dambe dooni yar baad iibsanaysaa qoriyo oo badda gunteedaad ku dhaadhacaysaa badweyntaad tegaysaa halkaad 20 qabanaysay 100 baa laga yaabaa inaad soo qabato markaasuu yihi kadibna waa laga magaalada caasimadda ayaad xaafadaha branch intood ku yeelato meel walba malaygaad ku buuxinoo cali kalluun lagu odhan baa lagu yidhi markaasuu yihi kadibna waddanka dhan baad u dhoofin doontaa kadibna waxaad la soo degi doontaa maraakiib warshadii samaynaysay saaradiinka ee masnaca lahayd baad yaad soo iibsan doontaa deedna badweynta markabku xaggaana kalluunka baddu ka soo nuugi xagga dambena masnaci weeyaan uu shaqaynayaa adduunkao dhan baad u dhoofin doontaa markaasuu dee kadibna marka dambe nin waxaad noqonaysaa riisho milyondeera markaasuu dee kadibna aqal qasriyo weynoo villaad dhisan oo si fiican baad u seexan bay ku yidhahdeen markaasuu yidhi hadda marka hadday timaadeen hurdaad iga kixiseen buu yidhi ma hurdadaa un baan intaasoo tacaba aad ii marinaysaan buu yidhi hadda markaad ii imanayseen soo ma hurdin ha hurda haddaan haystaa haywaalina iska socda buu ku yidhi waxaan ka wadaa dadka maanta inaku hadafku qofka muslimka hadduu hadafkiisa haysto u fiirso dadka muslimiinta kamaalqabeenka cibaadaysanaya wallaahi cibaadadiisa uu ku raaxaysanaya ka faqiirka cibaadaysanaya faqrigiisa uu ku raaxaysanaya ka buka maaragtaan ee bugtaanka mid bugtaana baad arkaysaa ood buuqanaysaa oo lugiya gacan intay qallashay haddana kule alxamdu lilah alxamdu lilah alxamdu lilah waa nicmad buu ku leeyahy maxaa ninkani uu ilaahay ugu mahadinayaa baa layidhi waa iimaanka qalbigiisa ku jira ee macrifada ilaahay marka hadafka laynoo abuuray walaalayaal hadduu inaga lumo sidaa dadkaa kale maanta gaalada dalkan iyo caalamkaba aan arkayno siday u nool yihiin ayaa maaragtaan qofka bani aadamku cidhiidhi buu galaya cidhiidhi keliya maaha bal adduunyadiisuna way dayacan tahay aakhiradiisuna qofkaasi way dayacan tahay sidaa darteed hadafka ilaahay noo keena walaalayaal inaan ku adkaano weeyaan waa maxay hadafku waa cibaadada ilaahay cibaadaduna halkay ka bilaabmaysaa waa ilaahay macrifadiisa awal maa wajiba cala alinsaani waa macrifada ilaahay jala wacala hadba intaad ilaahay aada garato ayaad ilaahay raalli gelin hadba intaad ilaahay adigu aada raalli gelisid ayaa noloshaada adduunka ee taakhirana kuu hagaagi nolosheennu sidaaba iskugu xidhantay waa inaad fahamtaan hadba qofku intuu ilaahay uu bartu ilaahay garto ayaa ilaahay daacadiisu u dhib yaraanu ilaahay adeeci hadba intaad adigu ilaahay aada adeecdidna noloshaada adduunka ee taakhiraha kuu hagaagi xadiis alqudsi ilaahay waa kii lahaa inii idaa udictu radiitu wa idaa radiitu baaraktu walaysa libarakati nihaaya aniga addoommahaygu hadday amarkayga qaataan ay iyeelaan baa ilaahay ay adeecaan noloshooda waan barakayn baa ilaahay raalli baan ka noqonayaa cidda aan raalli gelisayna baa ilahay waan barakayn barakadayduna nihaaye meelay ku dhammaato male baa ilaahay yidhi waidaa cusiitu qadibtu baa ilahay yidhi haddii lay caasiyo oo addoommahaygu sida aan u arabay ay u soconi waayaan kadibtu baa ilahay yidhi waan cadhoon waidaa kadibtu lacantu haddaan cadhoodana cidda iga cadhaysiisay baa ilahay yidhi waan lacnada lacnadu waa maxay naxariistayda ayaan ka dheeraynayaa weeyaan wa ina alacnata minii tablugu saabica min alwuld lacnadayduna kaa iga cadhaysiiye ku koobnaani mayse ilaa ilmihiisa 7 bee lacnadu kasii muuqan baa ilaahay yidhi cibaadaduna waa nolosheennay barakaynaysaa macaasiduna nolosheenna ayay barakada ka qaadaysaa bal adiga iyo ilmaha dhashay kuma koobnaanayse ilaa facaaga 7 bee lacnadu ay ka muuqanaysaa sidaa daraaddeed walaalayaal ikhwaanii wa akhawaatii waxaan igu boorinayaa nafteydana aan ugu nasteexaynayaa hadafku yuuna inaga lumin adduunyaan joognaa waa run adduunyadan ilaahay baa nagu abuuray shaqadeeda lagu diidi maayo xalaal baa ilaahay inakay noo jideeyey saad u noolaanaysa shareecaddaa kuu sheegaysa saad u guursanaysa sharcigaa kuu sheegaya sidaad u ganacsanaysa sharcigaa kuu sheegaya saad reerkaaga u qabanaysa sharcigaa kuu sheegaya saa ilmahaaga u tarbeedinaysa sharcigaa kuu sheegaya diin markaan hadal qaadno salaad keliya maaha waxa laga hadlaayo diin markii la hadal qaado waa nolol isku dheeli tiran weeyaan laga bilaabo dhalashada ilmuhu dhasho ilaa godka qofka la dhigaayo waxaa la rabaa inuu ku noolaado sharciga ilaahay jala wacala min dhalashada qofku markuu dhasho ayaa nebigu sal alla alay slam saxaabadiisu ugu ducayn jiray baaraka allahu laka almawhuubi laka warziqta birahu wa balaga ashuddahu wa shakarta alwaahiba ilaahay ha kuu barakeeyo mawluudkaa kuu dhashay ilaahayna xooggiisa ha muujiyo oo da'dii barakaysnaydna allaha gaadhsiiyo adigana maaragtaane ku shugriyo allaha kaa dhigo saasuu nebigu ugu ducayn jiray marka qofka iilka qabriga la dhigayana waxaa lagu dhigaa bismi illaahi wa calaa millati rasuuli illaahi ama bismi illaahi wa calaa sunnati rasuuli illahina waa lagu dhigaa dhalashada maalinta dhalashada waxaa laga bilaabaya qofku waa ducadaas
maalinta qabriga laga dhigana dikrigaa uu nebigu asxaabta u qaban jiray ayaa la rabaa qofka iilka in lagu dhigo intaa markaa nolosha dhimashadii dhalashada u dhaxaysa waa inaad u noolaataa sida addoonka ila xor ma nihine dadku xor maaha kulligeen addoommo ilaahay baa nahay haweenkuna waa addoonta ilaahay ninkuna waa addoonka ilaahay marka addoonkuna khiyaar ma leh addoonku khiyaar ma leh khiyaar waa maxay yani mid wuxuu doona samayn kara oo u madax banaan maaha waktigaaga uma madax banaanid araggaaga uma madax banaanid maqalkaaga uma madax banaanid dhaqaalahaaga uma madax banaanid dhallinyarnimadaada uma madax banaanid oo meeshaa doontaan la mari maaha sharci baa inaku leenahay sharci sharaca lakum min addiini maa wasaa bihi nuuxan waladii awxaynaa ilayka wma wasaynaa bihi ibraahiima wamuusa waciisa an aqiimu اddiina walaa tatafaraquu fiihi kabura calى اlmushrikiina ma tadcuuhum ilayh allahu yajtabii man yashaa wayahdi ilayhi man yuniib sharcigeenu inaka waa kaas bishan hadda aan ku jirno maalmahan waxaa ku jirta cashuura ku jirta cashuura arbacata ayaam kadib bay maalintaa iman doontaa nabigeenu calayh salaatu wasalaam madiinat almunawar u yimiday yahuuddii madiine la deganayd oo soomaysa buu nebigu arkay saxaabadiisa ayuu ku yihi waa maxay soonkan yahuuddu cashuura ay soomayaan markaasaa nebiga loo sheegoo lagu yidhi waa maalintii nebi muuse calayhi salaam ilaahay uu ka badbaadiyey fircoon ee fircoon iyo qoomkiisana la halaagay nebi muuse iyo qoomkiisana la badbaadiyey weeyaan markaa nebi muuse ayaa ilaahay ugu mahadnaqay oo isagoo rabbigii ugu mahadnaqayu nebi muuse soomay sidaas iyakuna markaa u soomaana waa sharcigoodii markaa buu nebigu yihi nebi muuse annaka uga xaqle sooma buu nebigu saxaabadiisa ku yidhi kal dambe haddaan nooladana taasuuca baan ku darayaa buu rasuulku yidhi maqduubi calayhim iyo waladaalliin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam cibaadadiibuu ku khilaafay sharcigiibuu ku khilaafay shareecadiis towraad ee nebi muuse loo soo dhiibay toosnayd ayuu nebigu ku khilaafo wuxuu yidhi haddaan kal dambe gaadhana taasuuca baan ku darayaa buu nebigu yihi sagaalaadkan ku darayaa si aan yahuud u khilaafo ma aragtaanay inankana mujtamaca muslimka dhallinyaradiisii maanta eega ayaa qudwo u ah ayayse ku dayanayaan salluu fii nicaalikum wa fii khifaafikum baa nebigu yidhi wakhaalifu lyahuuda fainahum laa yusalluuna calaa nicaalihim walaa khifaafihim xadiid macnihiisu ahaa buu nebigu saxaabada ku yidhi khufkiina iyo kabihiina ku tukada oo yahuud khilaafa buu nebigu yidhi waayo yahuudda maaragtaanay kuma tukadaan buu nebigu yihi khufka iyo kabaha kuma tukadaan maxaan ka wadaa maxaan xadiista usoo qaadanaya walaalayaal cibaadadii saxda ahayd ee shareecaddii nebi muuse loo soo dhiibay ayuu nebi maxamed yahuud uu ku khilaafay inakana maanta mujtamaceena dhallinyarada u badan dadka ay ku dayanayaan hadday dharqaadasho ay tahay hadday dhaqan ay tahay hadday socod ay tahay hadday hadal ay tahay waxaan maanta ku dayanaynaa alakhyaar kuwee maqduubi calayhim waladaalliin dadka ilaahay u cadhooday ee la yidhi cabadata waalkhanaasiir waa kuwa maaragtaane doofaarada ilaahay uu ka dhigay weeyaan ee khanaasiirta iyo daayeerta ilaahay u khasifay ayaa maanta la moodaya inay adduunka iyaka horumar ay hayaan markaasaa muslimkii caqligiisa xataa kuma socdo cilmigiina kuma socdo baa la yidhi caqligiina kuma soconno bal waxaan ku soconnaa maanta caqli dad kale ay leeyihiin wa qaala arasuulu yaa rabbi ina qowmi ittakhaduu hada alqur'aana mahjuura wa qaala arasuulu yaa rabbi waa goormuu nebigu hadalkaa yidhi calayhi الsalaatu wasalaam cuqbata ibnu abi mucayd ninkii la odhan jiray mushrikii quraysheed ayaa cazumad buu sameeyey waliimad waa markii maka la joogay diinta islaamku qariib ka ahayd marka cazumad markay carabtu ay fidinaysana shaksiga ugu qiimo badan magaalada make ugu sharaf badan wuxuu ahaa nebi maxamed calayh isalaatu wasalaam marka cazumaddu nebi maxamed uu ka maqan yahay waa naaqis weeyaan cazumadaasi lidaalika diyaafadii markuu u yeedhayay dacwadii dadka dacwaddii buu nebiga gaadhsiiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo ballanka ilaalinaya waxa uu noqday qofkii ugu soo horreeyey u soo gala si uu ballanka ninkaa ugu buuxiyo waana mushrik ninkaasi la soco sida nebigu akhlaaqda u hagaajinaya eega waayo nebigu dacwada iyo risaalad buu ummadda u gudbinayaa risaaladana akhlaaqda wanaagsan baa lagu gudbiyaa cibaadadana ikhlaaska wanaagsan baa lagu gudbiyaa oo cibaadada ilaahay inuu kaa aqbalo waxa u shardiga waa ikhlaas lanna cibaadada ilaahay baad uga jeedaa inuu kaaga raalli noqdo amaa risaalad markaad gudbinayso ee dacwadda ummadda aad u gudbinayso shardi waxaa waa maaragtaan xusnu lkhuluq inuu qofku dabeecadda wanaagsan inuu dabeecad wanaagsan yeesho
lidaalika nebigu sal alla alay slam uu ugu soo horreeyey mujrimiintii qureysheed markay yimaadeen abujahl baa arkay markaasuu yihi warma meesha moxamed uu joogo ayaad annaka noogu yeedhay buu ka yidhi meel baad nagaga dhacday buui meel baad nagaga dhacdee annaku waan kaa dareernay waayo ninkaa dagaal baa naga dhexeeya bay idhaahdeen safaha axlaamana wa caaba aalihatana wamaata aalihadayadii buu naga ceebay uu naga dalleeceeyey odayadeedii caqliga badnaana man wuxuu ku sheegay dadaan maskax iyo maan aan lahayn buu ku sheegay aabbayaasheedii dhintayna eelanaar buu ku sheegay ma ninkaasi maaragtaanay diintaa noola yimiday annaka maaragtaanay dhulka nagu dhifatay miyaad ugu yeedhay casuumadda ma meeluu moxamed joogaad annakana noogu yeedhay waa kaa dareeraynaa markaasuu yidhi hayga dareerine maxaan yeelaa bal ii sheega waxay yidhahdeen annakoo u jeednoo arkayna moxamed hor joogso wejiga qandhufka ka tufay ku yidhahdeen waxaa nebiga sidaa loogu ihaanaysanaya waa diini ogow wa aniga iyo adiga siday risaaladu inoo soo gaari lahayd ayaa nebigeenna sidaa loogu galayaa calayhi salaatu wasalaam sidii buu sameeyey gaalkii xunaa markaas anu kuuma yeedhin adaa iska yimiday fatafala fii wajhi nabiy sal alla alay wasalam markaabuu nebigu isagoo murugoonaya oo qandhuuftii wejigiisa ka bixinaya ayuu nebigu aqalkii ka soo baxay inta uu gurigiisa gaadhin ayaa qur-aanku ku soo degayaa wa yowma yacaddu الظaalimu calىa yadayhi yaquulu yaa laytani itakadtu maca arasuuli sabiila yaa waylata laytanii lam atakid fulana khaliila laqad adalanii can الdikri bacda id jaaءanii wakana الshayطaanu lilinsaani khaduula waqaala الrasuulu ya rab ina qowmi اtakaduu hada اlqur'aana mahjuura maalin baa iman doontaa nebiga lagu yihi wadkur xus maalin baa iman doonta daalimkaas iyo daalimiinta lamida farta intay dhexda ka qaninaan bay ku calaacali doonaan maan moxamed calayhi الsalaatu wasalaam dhaqankiisa maan raaca hadyigiisa maan raaca shareecadiisa maan raaca way abijahl baa ilumiye warkiisa maxaan u qaadanayey maalin bay ku calaacali doonaan baa nebiga lagu yidhi wakadalika jacalna likuli nabiyin caduwa min almujrimiina wakafaa birabbika haadiya wanasiira qur'aanka markaa nebiga qalbigiisana waa la dejinayaa oo laleeyahay arrinkan adiga kugu dhacay kuguma eko adiga keligaa kuguma eko dadkii hore ee risaalada u soo dhiibnayba sidaasun bay mujrimiintu u jeesjeesi jireen oo loo dhibi jiray laakiin adiga rabbigaabaa kula jira nebiga lagu yidhi gargaaraad haysataa haadi baad haysataa dariiqa xagga kugu ridaye ha ka welwelin baa nebiga lagu yidhi maalin keliya adiga dhib kuu geystaan laakiin dhibaatada way ka sugaysaa ka weyn baa ilaahay ku yidhi ikhwaani wa akhawaati walaalayaal zamanku waa zaman adag weeyaan intaynan maanta halkan fadhida 100 qof ma dhinnin laakiin mujtamaceenna eega dhallinyaradeenna eega bidaat weliba waddankan aad joogtaan waa waddan mujtamac kale uu nagula dhex nool yahay maantadan aan ku lahaa nin saaxiibka iyo qoyskaaga maxaad magaalada iskaga keentay waddanka islaamka aad uga keentay walaalayaal waxaan helayno iyo waxaan waayayno waa inaan isku qiyaasnaa waa inaan dhallinyaradeenna mujtamaceenna aan risaaladda iyo dacwadda u gudbinnaa laanna ummaddani waa ummad ilaahay uu doortay raggeedana waa doortay haweenkeedana ilaahay waa doortay marka allahna inagu anfaco naftayda iyo lafihiinaba waxaan ku baraarujinayaa waxay noo ballanaa inaan diinta dadaalkeega u kacno inaan noqono aamiriina bilmacruuf wannaahiina cani ilmunkar sida ilaahay qur-aankaba uu ku sheegay waa khasladda ummaddani ummadihii hore ay kaga khayr badan tahay ilaahayna haynagu anfaco hada wabiاllahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat اllahi wbarakaatu